بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Iiraan oo si cad u sheegaya in aysan ka tanaasulayn wadankooda inay difaacaan gardarro kasta oo lagu soo qaado hadalkan ayuu jeediyay saacado un kadib markii Iiraan jawaab culus ay ka bixisay weeraro Israa'iil ku qaaday wadanka Lebanon isla markaasna goobo kala duwan ay weerareen ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa dhankiisa wuxuu ku andacoonayaa inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah Lebanon haddii Xisbullah ay soo weerarto Israa'iil gaar ahaan ciidankooda ku sugan koonfurta Lebanon ururka Xisbullah ayaa dhanka kale waxa uu ka warbixiyay weeraro ka dhan ah militariga Israa'iil oo ay fuliyeen saacadihii ugu dambeeyay maamulka Trumpna wuxuu beeniyay war ka soo yaray Israa'iil oo ku aadana inuu ka caawiyay qabqabashada gantaaladii Iiraan maanta ay ku soo weerartay magaalooyin kala duwan oo ku yaala Israa'iil in ka badan 10 qof ayaa ku geeriyootay doon tahriib oo kula qallimantay dadkaasi xeebaha wadanka Malta dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo falaqayntii iyo wixii warar ee soo kornay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa maxamed axmed cadde oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn ururka Xisbullah ayaa sheegay in ay weeraro dhowr ah oo diyaaradaha droonisa inay ku qaadeen ciidamada Israa'iiliyiin oo isku soo urursanayay gaadiidkooda koonfurta Lebanon ururka Xisbullah ayaa sheegay inay duqeeyeen ciidamada Israa'iil ee ku sugnaa tuulada Naqura iyo meel ku dhow magaalada Yahmar al-Shukif waxayna ku tilmaameen howlgalkaasi inuu ahaa mid weerarkooda si toos ah u haleelay ciidamadii cadawga goobaha ay ku sugnaayeen ee Israa'iil madaxweynaha wadanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in Iiraan ay si xoog leh u difaacayso xuquuqdeeda iyo xuquuqda shacabkeeda marna ay dib uga noqon doonin hanjabaad kasta oo loo jeediyo iyo khatar kasta oo soo wajahdo wuxuuna ku nuuxnuuxsaday Iiraan inayna marnaba joojin doonin dagaalkeeda isla markaasna ay ka tagi doonin miiska wada hadallada wuxuuna ku tilmaamay diblomaasiyadda iyo difaaca inay yihiin laba tiir oo muhiim ah awoodda qaranka wadanka Iiraan hadalkii ugu horeeyay uu jeediyay markii Iiraan ay duqeysay Israa'iil ayaa wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Israa'iil Katz waxa uu sheegay militariga inay sii wadi doonaan howlgallo ka dhan ah ururka Xisbullah ee wadanka Lebanon gudihiisa waxaan duqeyn doonaa buu yiri magaalada Beirut haddii ururka Xisbullah ay Israa'iil weeraraan Katz ayaa digniin ku bixiyay in koonfurta magaalada Beirut gaar ahaan xaafadda Daheya in loo tixgelin doono in ay la mid tahay sida waqooyiga Israa'iil dadka ku nool oo kale wuxuuna sheegay weerar kasta oo waqooyiga Israa'iil lagu qaado wuxuu dhalin doonaa weerar aan ku qaadno magaalada Beirut sarkaal Mareykan ayaa beeneeyay warar ka soo baxay dhinaca Israa'iil oo sheegaysa in ciidamada Mareykanku ay ka hortageen gantaalada nooca ballistikada ah ay Iiraan ku soo riday Israa'iil isagoo la hadlayay warbaahinta Mareykanka ayaa sarkaalkaasi wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanku aynan ka hortagin gantaalada ay Iiraan soo riday 24 saac ka hor arrintaana waxay ka hor imaanaysaa warbixino tilmaamaya in Mareykanku uu lug ku lahaa difaacidda howlgallo difaaca inuu ka geysanayay gantaalada lagu soo ridayo Iiraan saraakiisha Israa'iil ayaa tilmaamay in howlgallo military ay ka wadaan koonfurta Lebanon siina wadi doonaan marka laga gudbo in Iiraan ay duqeysay goobo ka mid ah waqooyiga Israa'iil warbaahinta Israa'iil ayaa ku waramaysa in ciidamada Israa'iil ay howlgallada ka dhanka ah wadanka Iiraan joojin doonaan hase ahaatee aysan joojin doonin howlgallada ka dhanka ah wadanka Lebanon mas'uul sare oo ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa digniin ku siiyay ururka Xisbullah hadday sii wadaan weerarada ka dhanka ah tuulooyinka iyo magaalooyinka Israa'iil in sidoo kale ay la kulmi doonaan weeraro tuulooyinkooda iyo magaaladooda oo ay ku jirto magaalada Beirut ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay si dhow uga shaqeynayso lana shaqeynayso saaxiibada caalamiga sidii lagu gaari lahaa xal diblomaasiyadeed oo nabad ah oo colaadda lagu soo afjaro waxa uu ka dalbaday dhammaan dhinacyada in ay isxakameeyaan
isla markaasna fursad weyn siiyaan dadaalka nabadeed si uu ku guuleysto. hogaamiyaha ugu weyn xisbiyada mucaaradka Yair Lapid ayaa sheegay in xaaladda dagaal ee hadda ka socda Israa'iil ay lugta ku leedahay inuuna danaha istiraatiijiyadda Israa'iil uunan ka shaqaynin, wuxuuna ku cambaariyey xukuumadda inay ku guuldareysatay in ay sharaxdo hadafyada ay ka leedahay ololaha military, wuxuuna ku dooday haddii aanan si wanaagsan loo soo bandhigin siyaasadda dowladda waxay muujinaysaa in hadafyo cad aynan xukuumadda haysan. Lapid ayaa sheegay in hogaanka Israa'iil uu ku guuldareystay dagaalada ka dhanka ah Gaza, Lubnaan, Iiraan iyo Daanta Galbeed, isla markaasna uunan ka fili karaynin shacabka Israa'iil in ay aaminaan isagoo aanan dood maangal ah u soo bandhigina la xiriirta faralkiisa militariga. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhintay kadib markii doon ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Malta. Hay-ad samafal ah oo Sea Watch la yiraahdo ayaa sheegtay ilaa iyo 50 qof in ka badan in laga badbaadiyay badda, waxaana badbaadiyey doon kuwa kalluumaysiga ah. ciidamada ilaalada badda Talyaaniga ayaa sheegay in ay markab u direen goobaha la sheegay in markab Liibiya ka yimid oo 60 qof waday oo ku rogmaday meel 45 Nactal Mile bariga ka xigta koonfurta bari ee Malta. Talyaaniga ayaa waxay sheegeen ilaa hadda inay 10 meyd heleen. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah ee degdeg ah ee soo kordha, ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed, aan ku bilowna arrimahan saacadihii ugu dambeeyey ilaa iyo xalay ilaa iyo maantii socday weeraro culus baa dhacay. Iiraan waxay duqaysay saldhigyo military, xarumo warshado kadib markii Israa'iil ay weerartay warshado. Israa'iil qudheeda ayana waxay weerartay goobo kala duwan, laakiin arrintan waxay ku soo aadaysaa Trump oo yiri ma ogolaanayo Israa'iil inay ka jawaabto weerarkii lagu soo qaaday. wuxuu yiri Netanyahu ma ahna cidda go'aanka iskala ariga weeye, laakiin waxaynu aragnaa Netanyahu dagaalkii inuu qaaday. marka maxay ka macno tahay arrintaas? wararka ka soo baxaya ee dhinaca Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaha Mareykanka, hadaladiisu waa iska hor imaanayaan. 24 saac ka hor wuxuu ku hanjabayay in Israa'iil ay sii duqayso goobaha ay ku sugan yihiin ururka Xisbullah. haddana waxaad moodaa in uu dhaleeceynayo Israa'iil. waxaa sidoo kale soo baxaya in Iiraan weerarka ay qaaday uu ahaa mid xog fiican ay ka haysay meelaha ay duqaysay. Israa'iilna ay muuqato in aynan yareysan karaynin hanjabaadda Iiraan ka imaanaysa. 24 saac ka hor Iiraan markii ay tiri waa diyaar garoobeynaa, dad badan ayaa waxay u haysteen in aynan waxba kasoo naasacdaan doonin. hadda Israa'iil maadaama ay jawaabtay, Iiraan waxaa laga yaabaa inay weerarka soo rogan celiso. Mareykanka dhankiisa, Israa'iil laba ayaa looga baahan yahay: in xabad joojin buuxda uu qaato oo ay ku jirto Lubnaan iyo Xamaas. haddii kale dagaalkani waxaa muuqata inuu faraha ka baxayo. warar ka hor imaanaya ayaa ka soo baxaya dhinaca Mareykanka oo la leeyahay Mareykanka xalay wuxuu ka qayb qaatay difaacidda gantaalada lagu soo riday Iiraan ay ka soo riday Israa'iil lagu soo riday. hase ahaatee isla Mareykanka ayaa beenanaya. waxay tahaba Iiraan waxaa ka go'an sida madaxweynaheeda hadalku u dhigayo, miiska wada hadaladana iyo diblomaasiyadan inay taagnaanayso, tallaabo kastoo militarina ay qaadayso, labadoodana ay yihiin laba tiir oo muhiim ah. Mareykanku inuu fahmo in Iiraan ay ka gudubtay marxaladii ay ku jirtay wixii ka horreeyay dagaalkii 40 maalmoodaha. waa gartay. dhanka qobarada Iiraaniyiintu maxay ka leeyihiin ayagu arrintan? nin professora oo la yiraahdo Abdullah Banar al-Attaba ayaa waxa uu leeyahay gantaalada Iiraan waxaa lagu duqeeyey qaybo hore ay u qorshaysay si ay ku xaqiiqsato. waxaana la fahamsan yahay inay qiimo weyn ugu fariisanayso Israa'iil duqeyntaasi, sababtoo ah haddii ay sii wado weerarada ay gobolka ka wado Israa'iil,
iiraan kama aamusayso. Waxay la tahay buu leeyahay iiraan waxa ay muujinaysaa hanjabaad istiraatiijiyadeed, waxa ay rabtaa in hanjabaadeeda dhab loo qaato, ma joojin doonto weerarada noocan oo kale ah ayuu leeyahay ninkaasi khabiirka. qorshahani waxa uu daba socdaa hadal u dhowaan jeediyey buu leeyahay hogaamiyaha ruuxiga ee cusub ee waddanka iiraan Mujtaba Khomeini oo maalintii ciidda ahayd ka hadlay arrimaha istiraatiijiga ah ee iiraan oo ay ku jirto in ay bartilmaameedsan doonaan badweynta Hindiya, maraakiibta Maraykanka ee jooga badda cas, badda Mediterranean-ka. wuxuuna hoosta ka xariiqayaa ninkani khabiirka ah khatar kasta oo ay iiraan soo wajahday inay ka jawaabayso meel kasta iyo cid kasta oo ka dambaysa. ujeedadana waxay tahay Maraykanka iyo Israa'iil inay laba goor ka fekeraan inta aynan weerarin waddanka iiraan, sida uu u dhigaya khabiirkaasi. waxaadna moodaa arrintaasi inay walwal weyn ku hayso Maraykanka. waa gartay, waa yahay. hadda waynu arkaynaa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil wuxuu leeyahay waa sii wadi doonaa duqeynta Lubnaan. iiraanna waxay leedahay haddii la weerar jawaab baan ka bixinaynaa. marka arrintan miyaysan u muuqan inaysan xal lahayn? khabiirada Maraykanka ee ka hadlaya arrimahan ayaa waxay soo bandhigayaan Netanyahu inuu ku jiro xaalad khatar ah. ciidankiisa dagaalka koonfurta Lubnaan ay ku galeen waxay la ahayd inay hawl fudud tahay, laakiin hadda waxay arkeen hawshii inay noqoto mid si adag. goobihii ay galeen oo dhan waa ku dhiiqoobeen oo ciidankooda waa la bixi waayeen oo khasaaro badan ayaa gaaray, gaar ahaan agabkooda militariga iyo ciidankooda. intaa waxaa dheer dhinaca hanjabaadda uu jeedinayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz, waxaa muuqata in ay tahay afka baarkiisa oo keliya. waxa weeye dhaawacyada gaaray iyo khabiirada laga dilay sida ay u dhigayaan dadka Maraykanka ee arrimahani la socda, in ay khasaaro weyn ciidanka Israa'iil ay ku sugan yihiin, qarkana u saaran yihiin inaynu dagaal sii wadi karaynin. agabka ugu daran ee dhibaatada geysanayana waxaa lagu sheegay inay yihiin gantaalada, iyagoo qaati ka taagnaa gantaaladii iyo diyaaradihii droniska ahaa. Xisbullah ayaa iiraan hadda kusoo biirtay. iiraanna duqeynteedu maaha duqeyn meel cidlaa ku dhacda. waxa weeye wax walba oo ay duqeynayaan macluumaad sax ayay ka hayaan. niishaabkoodana waa sugan yahay. khasaaraha ay geysteenna waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid dib u dhac weyn ku keenaya howlgallada militariga Israa'iil, maadaama khabiiro badan ay uga dhinteen halkaasi. iiraan iyadoo la soo weerin ayay hadda weerarka qaaday. inta badan ayadaa la soo weerari jiray way ka jawaabi jirtay, laakiin hadda iyadoo leh waxaan difaacaynaa Lubnaan ayay Israa'iil weerartay. marka maxay isku halaynaysaa iiraan? kalsoonida ay qabtaase muxuu yahay? su-aashaas waa su-aal aada xasaasi u ah. dagaalkii 40 maalmood ahaa Maraykanku markii uu weerar naxariis darraa iiraan ku qaaday, uu rabay in uu burburiyo wax walba oo iiraana, xukuumaddana rido. waxaa u suurowday habeenkii ugu horreeyey in uu dilo hogaamiyihii ruuxiga Cali Khamenei. Maraykanka 4 maalmood ee ugu horreeyey dagaalkii uu geystay dagaal la mid ayaa iiraan saacadii ugu horreeyeyba qaaday, oo ay ku beegsanayso 8 wadan oo ku yaala bariga dhexe oo Maraykanku uu ku lahaa xeryo military. xeryahaasi militariga intooda badan macluumaadka oo dhan waxay tilmaamayaan in aad loo burburiyo marka laga reebo 2. iiraan kalsooni xoog leh ayaa soo gashay Maraykanka. wixii ka dambeeyay dagaalkaasi iiraan hadda waxaad moodaa in ay bedeshay caqiidadeeda dagaalka. awal waxay lahayd dulqaad istiraatiijiyadeed, markii lasoo weeraro ayay wax difaaci jirtay. hadda meelaha ay khadka cas ku dartay waxaa ka mid a in la weeraro ururka Xisbullah iyo in la weeraro magaalada Beirut iyo in la weeraro ururka Xamaas iyo Gaza. Israa'iil mar kasta ayay ku adkeysanaysay 15,000 oo goor ayay xadgudub ku samaysay xabad joojintii 15 bilood socotay oo dagaalka ka hor Lubnaan iyo Israa'iil ay gaareen. Israa'iil marka waxa ay noqotay meel mar kasta gardarrada ay ka bilaabato. waxa ayna isku haleynaysay daladii Maraykanka
maraykanka maadaama uu dagaalka tegay iiraanna ay aragtay maraykanka waxa uu geysan karo iyo waxa uu bixin karo kalsooni hadda waxaa soo gashay in sida mas-uuliyiinteeda hadalka u dhigayaan miiskooda hadlana ay fadhinayaan tilaabo kasta oo militarina ay saan ku gudayaan weerarkii xalay ay qaadeen wuxuu jawaab u ahaa weerarkii lagu qaaday magaalada Beirut waxaadna moodaa Israa'iil in ayada lafirkeeda ay weerar qaaday cawaaqib inuu ka imaan doono sababtoo ma joojinayso Iiraan dagaaladan ay qaadayso hadda wafdi ka socda wadanka Pakistan ayaa Iiraan ku sugan oo xabajoojintii raba inuu dib u bilaabo laakiin waxay cadeynaysaa Iiraan inay ku soo biirtay quwadaha waaweyn sida khabiirada ay u dhigayaan reer galbeedka maadaama ay maareysay in ay 8 dal hal mar wada weerarto Maraykankana u adkaysatay weerarkiisa arxan darrada hadda waxaa muuqata ayada laftirkeeda in istiraatiijiyadeeda bedeshay Maraykanka iyo Israa'iilna way ogsoon yihiin Israa'iil waxay kari karto agabka ay kaashanayso ayaa midka walwal keenaya diyaaradahan droniska oo Hezbollah ay ka cabanayeen hadda diyaaradihii droniska ee Iiraan iyo gantaalada guuxooda ka dheereeya waxyeelada ay geystaan waa ka weyn tahay waxaana muuqata dagaalkani sida lagu soo afjaray in adkaanayso khabiirada qaar ayaa waxay qabaan sida Professor Sachs oo kale Maraykanka xabajoojin la'aan in uu bariga dhexe ka soo hureero sababtoo qodobada meesha yaala ayaa qodobo aad u culus oo ay ka mid tahay inuu gobolka bariga dhexe ka guuro magdhow bixiyo marinka Hormuzna ma aha oo kaliya in Iiraan la wareegtay wax ka gudbaya iyo wax galaya ayada maamusha oo lacag ka qaata waxaana muuqata in walwal weyn ay ku keentay wadamada reer galbeedka maadaama badan ay bad istiraatiiji ahayd marinka Hormuz hadda in Iiraan la tacaamulo inay tahay wax laga maarmaan waa tahay maxamed aad baad u mahadsantahay daawadayaashana ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo